Aboowe anigii nin ayaan isbaranay kadib wuxuu iga duubay wuxuu igu xujiyey lacag kadibna 200 ayaan u diray hadda wuxuu iga rabaa $500 waan dhibanahay maxaan sameeyaa fadlan i caawi walaalkay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داود المال كستو أدونك كجوكتان كسو دوادا برتا فيسبوك أن كل نهي برهان جنال كنسو دوادا برنامج جارة أو أن أوغهد لدونو شبكادو دوان كسو بيري براه بلشدا كواسي أو موقالو قرصون كدوبتا قبلها إيراغ سوماليات ugu horeyntii shabakadan oo isku jirta ajaanibta iyo Soomaalida ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay ku soo biireen baraha bulshada ay aad u isticmaasho gaar ahaan barta loo yaqaan Facebook baaritaan ay sameeyeen ila lagu kalsoon yahay ayaa waxa lagu ogaaday in qolada fikirkan leh ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah waxa ayna isku jiraan wariyaal iyo qaar kale oo siyaabo kala duwan magac ugu dhaxlay bulshada sidoo kale waxa ku jira ajaanib ay u badan yihiin carab kuwaasi oo loo diro dadka caanka ka ah baraha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda tusaale muddo laga joogo hal sano waxa muuqaal laga duubay DJ Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah waxaana lagu magacaabaa DJ Subeer bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaarkood ayaa sheegay inuu yahay muuqaal lagu farsameeyay editing ama kaliya la isticmaalay wajigiisa waxaad horay u aragteen haween magac ku leh baraha bulshada kuwaasi oo laga soo dhigay muuqaal aan u fiicneen anshaxa kuwa qaar ayaa sheegay in ay u direen qof uu ka dhaxeeyay xiriir hasaawe wallow la ogaaday in aysan waxba ka jirin arinta ah in qof hasaawe uu kala dhaxeeyay muuqaalada qaar ay u direen wallow la ogaaday in aysan waxba ka jirin kiliyana lacag laga rabay gabdhahaas qaar kamid ah ayaa markii dambe ku adkaystay in wax lacag baad ah aysan dhiibin sababta ayaa ah in dhowr jeer lacag fara badan laga qaaday gabar ku nool magaalada Muqdisho oo ila soo xiriirtay ayaa waxa ay sheegtay sida tan aboowe anigii nin ayaan isbaranay kadib wuxuu iga duubay wuxuu igu xujiyey lacag kadibna 200 ayaan u diray hadda wuxuu iga rabaa $500 waan dhibanahay maxaan sameeyaa fadlan i caawi walaalkay. taasina waxay ahayd gabar ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo muuqaal yar u dirtay wiil ay xiriir uu ka dhaxeeyay dhanka kale waxa jira shabakad ayadana ka madax banaan kuwa lacagaha baado laakiin iyaga kuwaas waxay uga duwan yihiin inay kharash ku bixiyaan inay helaan muuqaal aan habooneen haddaba waa kana wariye sare Cabduqaadir Koronto oo ka waramaya waxay joogaan Mareykan iyo Canada iyo wadamo oo muxuu ahay shaqooyin iyo dhaqaale u yaalo gabdhii Soomaaliyeed Afrika iyo Soomaaliya joogay ayaa waxay og yihiin in macnaa ay shaqo la'aan iyo dhibaato inay hayso marka bishii lacag $200 ayaa loo qorayaa gabadhii ama $300 ayaa loo qoraa ama lacag indhaha laga gelinaa marka ninkaas naag la'aan hayso wadankaas naag la'aan ku hayso wuxuu rabaa marka gabadhii Soomaaliyeed inuu qadka telefoonka ay ka qanciso muuqaal ay ka soo wacday la midka ragga ugu badan ee wax faafiyana waa ragga noocaasa oo videogiina ka duubay gabadhan waxay is leedahay lacagtan aysan ka joogsanin war lacagtaas ay cunaysid xalaal ma taamiso ugu dambeyntiina maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed ee aadka u isticmaasha baraha bulshada waxaan idin xaqiijinayaa inay jiraan shabakadaas ka ganacsata muuqaalada laga duubo bulshada Soomaaliyeed waxaana idinkaga digayaa in idina yareysan maxaa yeelay waxa uu saameyn karaa mustaqbalkiina dhow daawade adigan haddana daawanayo ma ku dhacday qof aad istaqaaniin qiso noocan oo kala ah haddayse jawaabtaadu ha tahay waa nala soo wadaagi kartaa waliba waxaad fariin ugu soo diri kartaa qaybteena message-ka intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawade barnaamijkeeni gaabnaa oo aan uga hadlaynay shabakado sanadihii la soo dhaafay ku soo biiray baraha bulshada kuwaasi oo muuqaalo aan anshaxa u rooneen ka duuba gabdhaha Soomaaliyeed kadibna ku xujeeya lacago daawade haddii aad ku cusub tahay barta Facebook aan ku leenahay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka share gareyso page-kana like gareyso mahadsanid.